Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ku diyaarinay amba aynu ka hadli doonaa cashar ku saabsan qaabka loogu diyaariyo luqadda Carabiga maqaalada. Maqaalkaasood ku diyaarinayso kombiyuutarkaaga adigoo adeegsanaya qaababka kala duwan iyo tallaabooyinka kala duwan iyo habka loogu qoro luqadda Carabiga maqaal. Haddaba waxaanu wada ogsoonahay inay markay had iyo jeer la qoraayo research oo kale hadaa la qoraayo kale projector haddii loo diyaarinayo company amba shirkad amba wasaarad oo kale amba bangi oo kale amba meel la maalgelinayo kale marka la doonayo in projector laga diyaariyo in lagu diyaariyo luqadda English-ta. Sidoo kale qofku markuu goobaha u shaqo tagayo badanka CV-yada lagu diyaariyo waxaa ka mid in lagu diyaariyo luqadda English-ta. Haddaba waa inaad ku diyaarsataa luqadda Carabiga. Waayo luqadda Carabiga iyo luqadda English-ta waxaa muhiim ah inuu qofku aqoon badan u yeesho luqadda Carabiga. Luqadda Carabiga barashadeedu waa luqad aad iyo aad u qaali tahay oo ah qofku inuu u yeesho aqoon badan luqadda Carabiga. Haddaba marka ugu horreysa intaanad hawsha bilaabin waxaa muhiim ah in kombiyuutarkaaga aad ka soo dhigto luqadda English-ta aad ka soo beddesho ood u soo beddesho luqadda Carabiga u soo beddesho. Luqadda Carabiga markaad u soo beddesho kadibna aad qaabkii loogu qorayay luqadda Carabiga aad aqoon badan aad u leedahay ood keyboard-kii aad taqaano oo mouse-kii aad taqaano oo taqaano sidii loogu diyaarinayay luqadda Carabiga oo loogu qorayay maqaalka aad doonaysid inaad qorto. Haddaba waxaa muhiim ah inaad intaanad maqaalka qorin aad tallaabooyinkan aad raacdo. Waxaa muhiim ah qodobka koowaad odhanayaa inaad soo doorato maqaal amba doonaysid inaad wax ka ogaato oo doonaysid inaad ka hadasho oo doonaysid inaad wax ka qorto inaad soo doorato. Qodobka labaad wuxuuna odhanayaa iyo qodobka saddexaad inkastoo ay isku dhow yihiin maqaalkaaga inaad xadido oo noqdo maqaal xadidan oo waxaad doonaysid inaad wax ka ogaato aan dhabna u dhaafahayn. Oo inta aad doonaysid amba area-da aad doonaysid inaad ka hadasho aad area-daas aad ku koobto maqaalkaagii oo tusaale ahaan maqaalkaagii adoo markii hore ka sheekeynayay maqaal ka hadlaya waxbarashada haddana aanad u gudbin maqaalkii oo ka hadlaya dhankii caafimaadka. Waxa weeyaan ma fiicna kaasi maqaal noqon maayo. Waa inaad waxaad ka hadlayso maqaalkaagaasi uu ku koobnaadaa. Hadafka aad ka leedahay waa inaad hadaf aad ka leedahay maqaalkaagii oo sheegaya uu gudbinaya maqaalka markaad dhammaystirto hadafkii aad ka lahayd iyo waxaad doonaysid inaad wax ka ogaato waa inuu maqaalkaasi gudbinaya. Qodobka afraad wuxuu odhanayaa mowduuca amba maqaalka aad doonaysid inaad wax ka qorto inaad maqaal uu noqdo dhammaystiran oona noqon maqaal aad kala bar ka tagtay barna aad qortay uu noqdo maqaal dhammaystiran oo xogtii oo dhan gudbinaya. Qodobka shanaad wuxuu odhanayaa maqaalka waa inaad u samaysaa tixraac amba muraajicdii oo kale waa inaad samaysaa lambaradii muraajicda waa inaad u samaysaa uu noqdaa maqaal maraajicdiisina la arkaayo oona noqon maqaal bilaa maraajic ah. Waa inaad u samaysaa qodobka lixaad khulaaso aad u samayso gebagabayn ood maqaalkii qurxiso uu noqdo maqaal qurux badan. Marka waxaan odhan karnaa maqaalka markaad qorayso waa inuu noqdaa maqaal dhammaystiran oo sheegaya dhammaan asbaabtii loogu talagalay iyo nidaamkii loogu talagalay markaad qorayso maqaalkan oo aanu noqonin maqaal aan dhammaystirnayn.
haddaba markaad intaa aad dhammaystirto aad qoto ayaa waxaa loo baahan yahay tusaale ahaan inaad fartii aad hagaajiso ood magaranaysaa dhisaankeedii iyo sidii ugu quruxda badnaa aad hagaajiso. Iminka tusaale ahaan halkan waxaa ku qoran lambaro English iyo Carabi. Marka waa inaan numberskina ka dhignaa lambaradaas oo kale iminka aan highlight-ka saaray waa inaan ka bedelaa. Lambarada iminka aan marinayo midabka casaanka huruudda u yar eg waa inaan bedelnaa aynu ka dhignaa lambaro magaranaysaa Carabi. Waxaad tegaysaa file markaad tagto waxaad ka soo dooranaysaa option halka ka qoran tahay markaad timaado waxaa kuu soo furmaya shaashadan waxaad kasii tegaysaa meesha ku qoran tahay advance kadibna shaashada weyn ee kale kuu soo furmaysa. Marka shaashadaasi kuu soo furanto hoos baad usoo jiidi doontaa waxoogaa markaad in yar hoos usoo jiido ayaa waxaad halkan ka raadi doontaa meesha ku qoran tahay farta Carabiga halka laga soo bedelayo numberska ayaad raadin doonaa. Marka tusaale ahaan waa halka laga soo bedelayo tusaale ahaan waa halka iminka haddaynu ka dhigno system numberada English bay noqonayaan contacts bayn kasoo dhigi doonaa si ay Carabi nagu noqdaan kadibna okay ayaan siin doonaa. Marka okay saa ku siino ayaa numberskii iminka haddaan soo baabino haddii numberkii iminka soo baabino aynu doorano number 1 Carabi buu noqday. Haddii aan doorano number 2 Carabi buu noqday. haddii aan doorano number 3 Carabi buu noqday. haddii aan doorano number 4 sidoo kale. Marka lambaradiina sida ayaad ku soo bedelaysaa ood uga dhigaysaa Carabi saasaad ku soo bedelaysaa. Marka maqaalku waa inuu noqdaa maqaal qurux badan waa inuu noqdaa oo farti hagaajisay oo magaranaysaa dhammaystiran. Marka qaabka loo qorayo maqaalada sida loogu diyaarinayo luqadda Carabiga barashadeedu waa muhiim waa inuu qofku aqoon badan u yeeshaa sidii ugu diyaarin lahaa luqadda Carabiga. Marka insha Allah maqaal baynu soo diyaarin doonaa. Marka maqaalka soo diyaarino ayaynu kaga hadli doonaa sidii ugu quruxda badnayd aynu u diyaarin lahayn maqaal. Marka insha Allah bismillahi kariim waxaanu soo diyaarin doonaa waxa weeyaan waa maqaal ka hadlaya intaynu ciwaan doorano ayaynu insha Allah bismillahi kariim soo gelin doonaa. Intana waxaanu ka dhigaynay waxa weeyaan introduction amba hordhac qaabkii aad u dooranaysay maqaalka iyo qaabkii magaranaysaa aad u soo gelinaysay iyo wuxuu ka hadlayay maqaalkaaguba ayaynu maanta uga dhigaynay hordhac. Marka insha Allah bismillahi kariim waxaanu ka hadli doonaa aynu soo gelin doonaa maqaalkii oo dhammaystiran oo magaranaysaa qoran ayaynu soo gelin doonaa hadduu Allah insha Allah ilaahay bismillahi kariim.